Assalaamu calaykum. Aerospace Engineering waa mid ka mid ah kulliyadaha injineeriyadda oo daraasaysa naqshadeynta, horumarinta iyo tijaabinta diyaaradaha, dayax-gacmeedyada, satellaytyada iyo gantaalada. 8,000 oo dayax-gacmeed iyo ku dhowaad 30,000 oo diyaaradood oo duulaya adduunka. Hawshaas inay suurtagasho waxaa ka shaqeeyey Aerospace Engineerska. Xudunta Aerospace Engineering ayaa ah naqshadeynta iyo horumarinta wax walba oo duula. Waxaanu ka hadlaynaa Boeing Hypersonic Jets ilaa gantaalada SpaceX ee ugu dambeeyey uguna weynaa. Qofka Aerospace Engineerka intuusan shaqada bilaabin waa inuu ka fakaraa diyaaradda noocee noqonayso. Ma diyaarad kerosiniya ku shaqaysaa maado batroolka laga keenay, mise waa diyaarad solar ah oo aanan batrool u baahnayn? Diyaaradda meeqay qaadi kartaa? Ma diyaarad 500 oo qof qaadi kartaa, mise waa diyaarad hal qof loogu talagalay sida diyaaradaha dagaalka? Ma diyaarad malaayiin mayl socon kartaa, mise waa daroon loogu talagalay inay muuqaalo duubto oo keliya? Kuwani waa su'aalaha uu isweydiiyo injineerka intuusan shaqada bilaabin. Tusaale ahaan, diyaaradda Concorde. Dadka aan aqoonin, Concorde waa diyaaradda ugu xawaaraha dheeraysa, waxayna ka dhaqsi badan tahay diyaaradaha caadiga 2 jibaar. Injineerka waa inuu isweydiiyaa su'aalahan si uu u soo saaro diyaaradda loo baahan yahay. Dhinac kale aan iska taagno, tusaale ahaan diyaaradaha militariga xoogga lama saaro su'aalaha ku saabsan xawaaraha, balse waxaa xoogga la saaraa badqabka bayloodka diyaaradda iyo diyaaradda. Kulliyadda Aerospace Engineering waxay leedahay 2 laamood oo waaweyn, waxayna kala yihiin Aeronautical Engineering iyo Astronautical Engineering. Aeronautical Engineering qaybtan waxay daraasaysaa naqshadeynta, soo saarista, tijaabinta iyo dayactirka diyaaradaha iyo wax walba oo hawada sare loo diro iyo nidaamyadooda. Tani waxaa ka mid ah diyaaradaha garabka ka go'an ee caadiga ah iyo sidoo kale helikabtarada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Halka Astronautical Engineering ay daraasayso wax walba oo ku saabsan sayniska, tiknoolajiyadda, dayax-gacmeedyada iyo sida ay u qabtaan jawiga dhulka gudaha iyo dibaddaba. Waxayna isugu jiraan samaynta dayax-gacmeedyada yaryar iyo dayax-gacmeedyada waaweyn. Si kooban, Aeronautical Engineering waxay diiradda saartaa horumarinta tiknoolajiyadda diyaaradaha iyo wax walba oo gudaha jawiga dhulka aan ka bixin, halka Astronautical Engineering ay diiradda saarto horumarinta cilmiga iyo tiknoolajiyadda dayax-gacmeedyada. Aerospace Engineerska waxay horumariyaan tiknoolajiyadda cusub ee loo isticmaalo duulista, nidaamyada difaaca iyo dayax-gacmeedyada. Qofka bartay Aerospace Engineering wuxuu ku takhasusi karaa naqshadeynta noocyada kala duwan ee walxaha hawada sare loo diro, sida naqshadeynta diyaaradaha ganacsiga, kuwa militariga, helikabtarada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, dayax-gacmeedyada, satellaytyada iyo gantaalada militariga. Qofka raba inuu noqdo Aerospace Engineer waxaa looga baahan yahay inuu qaato shahaadada Bachelor oo Aerospace Engineering ah. Ardayda dugsiga sare ee danaynaysa inay bartaan kulliyaddan waa inay xoogga saaraan maadooyinka kimistriga, fiisikiska, xisaabta, barnaamijyada kombiyuutarka iyo luqadaha kombiyuutarka. Haddii aad ku raaxaysato xalinta caqabadaha farsamada ama aad ku fiican tahay inaad wax cusub keento, Aerospace Engineering waa kulliyaddaada. Waxayna kuu furaysaa fursado badan, waxaana ka shaqayn kartaa haddaad barato kulliyaddan warshadaha kala duwan sida warshadaha ka shaqeeya hawada sare, warshadaha difaaca, warshadaha baabuurta iyo warshadaha tamarta. Guud ahaan, shaqooyinka uu qabto qofka bartay kulliyadda Aerospace Engineering waxaa ka mid ah naqshadeynta, samaynta iyo tijaabinta alaabta diyaaradaha iyo qalabyada hawada sare, qiimeynta iyo soo jeedinta mashaariicda si loo go'aamiyo inay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba macquul yihiin, hubinta in mashruuca uu buuxiyey heerka tayada, hubinta qalabka xumaaday ama burburay si loo ogaado ilaha dhibaatooyinka iyo xalalka suurtagalka ah. Aerospace Engineerska badankooda waxay shaqeeyaan full time 40 saacadood isbuucii, qaarna waxay shaqeeyaan in ka badan 40 saacadood, waxayna caadi ahaan ka shaqeeyaan goob xafiis ah iyagoo inta badan shaqada u isticmaala kombiyuutarka. Qofka raba inuu noqdo Aerospace Engineer ugu yaraan waa inuu qaataa shahaado Bachelor oo Aerospace Engineer ah ama kulliyadaha la xiriira si ay ugu shaqeeyaan. Aerospace Engineerska ee ka shaqeeya mashaariicda la xiriira difaaca qaranka waxaa laga rabaa inay yihiin dad lagu kalsoonaan karo, dowladda sirteeda ilaaliya,
kuliyaddan mushaar ahaan waxay ku jirtaa kuliyadaha engineerinka ee ugu mushaarka badan uguna mustaqbalka fiican. Qofka bartay aerospace engineering markuu cabbaar shaqeeyo ayaa laga yaabaa inuu dalaco si uu u noqdo khabiir farsamo ama kormeere koox injineero iyo farsamo yaqaano ah. Dadka qaar oo kuliyaddan bartay waxaa laga yaabaa inay noqdaan maamulayaal injineero ama u guuraan jagooyinka fulinta sida maamulayaasha barnaamijka. intaan ayuu ku egyahay muuqaalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.